wuxuu u eegyahay magaalo yar oo guuraysa oo dul maraysa badda maadaama uu leeyahay 7 barkadood oo lagu dabaasho jardiinooyin caalami ah dukaamo makhaayado goobo ciyaaraha barafka lagu ciyaaro iyo meelo kale oo lagu ordo. Icon of the Seas oo ah markabka ugu weyn ee dalxiis ee dunida ayaa safarkiisa ugu horeeyay bilaabi doona bisha soo socota kaasoo ka socdaali doona dalka Finland isagoo u jeeda magaalada Miami ee cariga Mareykanka. Geedi socodka uu soo maray dhismaha markabka lagu magacaabo Icon of the Seas oo ah markabka ugu weyn ee dalxiis oo heer gabagaba ah maraya ayaa inta uu safarkiisa ku jiro la filayaa inuu sii maro dalal badan oo Yurub dhaca maadaama markabkani ka soo kicitamay dalka Finland una socdo magaalada Miami ee dalka Mareykanka. waxaana sida qorshuhu yahay raaci doona markabkan madax iyo shakhsiyaad kale oo caana kuwaasi oo sugaya inay safar ku aadaan badda Caribbean-ka iyo magaalooyin kaleba. waxaana tigidhada lagu raacayo markabkan laga goynayaa dalka Sweden iyadoo qiimuhuna uu ka bilaabanayo $1,200 qofkiiba. hindisaha markabkan oo ay iska leedahay shirkadda maraakiibta ee Royal Caribbean wuxuu u eegyahay magaalo yar oo guuraysa oo dul maraysa badda maadaama uu leeyahay 7 barkadood oo lagu dabaasho jardiinooyin caalami ah dukaamo makhaayado goobo ciyaaraha barafka lagu ciyaaro iyo meelo kale oo lagu ordo. tilmaamaha markabkani sidoo kale khaaska uu yeelan doono waxaa ka mid ah inuu leeyahay beerta biyaha ee ugu weyn adduunka oo loo yaqaano Category 6. markabkan waxaa sidoo kale laga furi doonaa 40 goobood oo laga helo cuntooyinka cabitaanka iyo goobo caways iyo madadaalo oo xilli walba furan. waxaana marka aan fiirino qiimaha tigidhka ee qofkiiba laga qaado oo ah $1,200 aad ku heli doonto ama aad ku qaadan kartaa waqti aad u fiican oo ku qanciya. habka markabkan loo dhisay ayaa ahaa inuu daboolo dhammaan baahiyaha dadka saaran oo nooc walba leh haddii ay ahaan lahayd meelo loogu talagalay qoysaska iyo sidoo kale meelaha loogu talagalay dadka waaweyn oo kaliya. markabkan ayaa 5 jeer ka weyn markabkii caalamka ugu weynaa ee isagoo quusay ee lagu magacaabi jiray Titanic. waxaana jira ilaa 28 nooc oo goobood oo kala duwan oo deegaan ah oo ku yaala markabkan iyadoo qaybaha inta ugu badan ay mar walba heli karaan qoysaska. waxaa kaloo intaa dheer goobo badan oo loogu talagalay dadka martida ah iyo meelo gaar ah oo loogu talagalay dadka muhiimka ah ee VIP-da. markabkan dalxiiska ayaa qaadi kara culays gaaraya ilaa 250,800 tan kaasoo 5 jeer ka weyn xajmiga markabkii aan soo sheegnay ee Titanic. waxauna qaadi karaa ku dhawaad 10,000 oo qof. wuxuuna safarkiisa u horeeya mari doonaa badda Caribbean-ka isagoo ku xiran doona magaalada Miami ee dalka Mareykanka. ilaa hadda sida aan xogta ku hayno waa markabkii ugu weynaa ee noociisa ah ee taariikhda adduunka soo mara ayuu yiri Mayor Turkish Team oo ah maamulaha shirkadda dhisaysa markabkan. hase ahaatee bulshada qaar ayaa dhaleecayn u soo jeediyay markabka weyn sababo la xiriira qiiqa kaarboonka ah oo sida ay sheegeen saameyn ku yeelan kara cimilada halka qaar kalena ay aad u soo dhaweeyeen ayna aad ula yaaban yihiin sida farshaxanimada leh ee markabkan dalxiiska loo hormariyay loona dhisay. waxaana la sheegay in dad badan si hordhaca u sii goosteen tigidhada si ay ugu dalxiisaan badda dusheeda. markabkan Icon of the Seas oo dhismihiisa la bilaabay 2021 wuxuu leeyahay qubad quraarad ah oo weyn oo daboolaysa xagga hore. dhanka kalena Digestara wuxuu yiri haddii aan gaarnay farsamadaas oo aanu samaynay maraakiib noocan oo kale ah waxaa iska caadi noqonaysa mustaqbalka dhow inaanu dhisi doono maraakiib waaweyn oo safar raaxa ah qiimahooduna hooseeyo. ninkan oo ku takhasusay howlgalka gaadiidka badda. maraakiibta waaweyn waxay leeyihiin faa'iidooyin dhaqaale oo cad sababtoo ah culayska ay qaadi karaan ayaa dhaqaale ahaan ka saacidi kara qarashaadka faa'iido ee shirkaduhu ay helaan taasoo wax weyn ka tari karta ganacsigooda iyagoo sidoo kalena culayska ka yareynaya kharashka ku baxaya dadka rakaabka ah ee raacaya markabka. maraakiibta casriga ah ee hadda soo baxa ayaa inta badan lagu dabaqaa tallaabooyin lagu dhimayo qiiqa hawada iyadoo loo marayo tiknoolajiyadda cusub. waxaana markabkan Icon of the Seas uu adeegsan doonaa gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ah taasoo ka dhigaysa safarkiisa mid aan u wanaagsanayn deegaanka maadaama khubarada qaar aysan ku qanacsanayn welina shaki ka muujinayaan sida loo yareynayo qiiqa iyo weliba cimilada adduunka ee sii xumaanaysa. balse Digestara wuxuu sheegay in qiiqa gaaskani uu ka saameyn hooseeyo kan shidaalka ee maraakiibta baddu isticmaalayso inkastoo dhibaato ay u leedahay cimilada sababtoo ah qulqulka macdanta methane oo ka soo baxaysa shidaalka awgeed.